السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان عظام قرب كذلك الدول قلت أبو السجان هذه أدوار محبرية في رفض هذا يدي الجنوب وحنسي قارب سلام يا دام يرى الخصوم بين سعيد ماله يكون قاضنا يا شغال قرن ما دام إنه كلية شغله مانت هذا الكلمة وحب ضان دور تابرك هي معناها كلية عيد ما الحقيقي وحنسي قارب سولوين يا ومانت حصول هذا عند فعد كوباد ليل سركال أيهن كوي كوباد كبح حياة الكوديس كوب قاضنا يا حديهم وسركال اللي بقى كوجار عند الكوديس إليه هي النسيب وعلاه وتاريخ وأنكوها بريئة وحين توصيله ومكيو الرئيسي قبل سوالي عنده تريد يعني بدان نبي طبعا قبله ونفته الأصهري إن القاطع تعبر ليل سركال أو عظام الله أو أنتي لما يبغى لنا مشتنا هذه ألبوم عبرية وسر وينيا إذا وين هروح كروا يسركيش يقول إن هبلها أيكم المرأة نقوم جد يكثروا أن لا روح لين وضوء وحكمنا سر وينيا أرض شقق قرن وحنون كان ترى أول أنا سنتوبين حفلة الرسول ويتري يكن يقول كنا قريب قال ترى شقق ذا ومدة تومر كنا ما تيجي حنون كان تري وحنكوها برينا أتكلم سجى أقول برا ذيجان إن مدة دي صد حبلات هاي أي شوين أنا وافقه كسر بحل هذا يجوا راعية البابا عاصماتك وحكموا غت إليهن أقوياء قادنا هي تابر عيدا يجرا آدي أبدان سولوينيا وحنكوها برينا تابر كيني هذا يلقى هاي وبيشن مي مركز دماتو تكلم أول كذا اللي نحرده يجرا تأثير سولوينيا أنت هرنا عمر كان ضعفه هل كان ما أنت أيوة هو حرق عسكري وأنا من العسكر سلوم تابره كود ألف لها يسركال كودا هي شغال قرن وحرك وبسط النمان شغادي لو رجل عسكر نمضي ما أنت عيد ما لو هي تريا شودي بوريس تريا أسلوبها كي حبها عسكري نمو تذكر يا بابا كلاهسته عسكري نمو عالميا هي إنه هو مركز أي مشارحني وحال يذكر راعي إنه عسكر نمو تهاي كلمة داس horta askari marka hore waa urdu oo waxa inoo kale markii ay baadar isticmaal ayuu nagu soo biiray malaha turkiga uu ka soo horeeyay inuu erayga lahaa haddaba askarinimo aynu qaadanaynaa oo ah fikrad ama mabda askarinimo sida ay ula mid tahay macallinnimo dhakhtarnimo looyarnimo waa shaqo shaqooyinkaasi dalka waxay u qabtaan iyo ummadda shaqooyin kala gaar ah oo dhammaan ummaddu u baahan tahay mid waliba wuxuu leeyahay muddaantiisa macnaha ay ku soo hortay caalamada iyo inagu askarnimadu waxa weeye askari marka hore wuxuu koobsadaa 3 arrimood oo tirada ta koowaad waa dal jacayl askari inuu hadal qaatay dadka karo dhan waa inaad doontaa dadka ka jeceshahay oo la jecelahay laba waa geesinimo iyo ciduna waa geesi dhakhtarku yahay maanta xanuunka jira wada baqayo dhakhtarku laabtu leeyahay qofkii cudurka fiirin uu bareeraya macallinku waa geesinimo oo jahal uu dagaalamaya oo dhibaato uu maraya in dadka iska saaro aqoon darrada laakiin askariga maxawle waa geesinimo iyo nafhurid wada socda askarigu geesinimadu wuxuu ku darayaa naftiisa wuxuu u warayaa inay inta kala badbaado marka waa tiirka labaad tiirka saddexaad waa xilgudasho sida u kala culus yahay oo xilgudasho maxay tahay askarigu ama janar ha ahaado ama dabla ha ahaado naftiisa wuxuu u warayaa saaxiibkiisa dagaalka kula jira inuu badbaadiyo askarnimada waxa weeye ka ku garab socda ee ciidanka golaha ee horintaada ah inuu nin waliba kala badbaadi uu kan kala soo dhigaa soo dabka saddexdaa tiir ayuu askarigu ku soo ururayaa tiir uu taagan yahay
oo mid walba ay ka farcamayso bugaag badan iyo duruus badan iyo aqoon badan oo fara badan oo keenta oo aantii laydin baraya sarkaalo maxaa tahay askari haddana sarkaalnimo layli sarkaal maxaa loo leedayaa sarkaalo maxaa tahay shaqo qaran waa sarkaal waa aqoon-yahan jaamicad u dhameeyey aqoonteenu buu leeyahay maxaa loo soo xireeyey ee xerada loo keenay iyana waa su-aal kale waa sarkaalnimo inaad labadiiba isu hayso aqoontii iyo sarkaalnimadii sarkaalkuna waxa weeye intii askariga nagu sheegay saddexdii tiir oo lagu daray go-aan qaadasho iyo hogaamin intii askariga marka loogu daro go-aan qaadasho iyo hogaamin ayuu sarkaal noqonaya haddaba maxaa lagu barataa kuliyaddan iyo kuliyadaha lamidkaa layli sarkaalka waxaa la barayaa oo goob ka ah qodobo fara badan oo ay ka mid tahay casharada ay ka mid tahay iyo shaqo qaran oo socdo ah shaqada oo dhisana baraxay dhismaha jirka iyo maskaxda labadaba in laga dhiso laba in la baro xakamaynta naftiisa xaaladaha kala duwan bini aadmu xaalado kala duwan buu maraa wuu caroodaa wuu gaajoodaa wuu bukroodaa wuu farxaa abiyey wax weelaayo marmarka qaarkood waa kibraa waxa weeye waxaa lagu barayaa xakamaynta naftaada xaaladaha kala duwan si aad u hoggaamsan dadka marka ay jiraan xaaladaha kala duwan waxaa la barayaa oo duruusta ay barteen ka mid akaadada barta lagu bartaa inaad u rogto dhaliishaada marka aad qaldanto qof kasta wuu qaldamaa bini aadmi baynu nahay ma jiro qof toosan kolkaa marka uu qaldamo ninka askariga ah waxaa loo tababaraa inuu qaladkiisa u rogo guul ereyada ka mid ah afafka askarta oo dhan adduunka waxaa kamid a diiba gurasho xeer dagaaleed retreatment oo ah khalad baa dhacay cadowgii waxbuu ah ama afrid u keenay waa inaad ku dadaashaa inaad qaladkaa u rogto saxiix iyo guul inaad ku gaadho waxaa kale oo halkan lagu tababaraa askarta saraakiisha halkan waxaa laga qaataa in guusha aad gaadha aanad ka qaadin faan iyo istustus ee guusha aad gaadhaa aada u aragta inay tahay waajib aada duwantay oo aanad u baahdan in laguga ammaano iyo inaad ku kibirto midna askarnimada waxaa loo kororsadaa dal iyo dad aqoon waayo dalka oo dhan baa u siman nooc dadkao dhanna way iska yimaadaan dalka oo dhan markaa dad iyo dad aqoonna waa iska korey intaasoo dhan waxaa lagu tababarayaa inaad hubiso difaaca dalka iyo inaad ka guulaysto cadowkaa soo horjeeda intaa waxaa u dheh oo ciidamadana si gaar loogu tababaraa xaq dhowridda shacabka iyo noloshooda iyo hantidooda xallinta khilaafyada iyo dhisidda nabadda si loo gaadho horumar dhinac walba horumar dhaqaale la gaari maayo haddaana askarigu nabadda xasilin oo aanu dhisin oo aanu dhibada u taagin horumar guud la gaari maayo ugu dambayn halkan waxaa lagu bartaa higsiga berrinta somalilan tan maanta ka wanaagsan iyada oo aan la iloobeyn wixii shalay dhacay haddii aad raadiso uun berrinta oo wacan oo waxyaalaha qaarkood aada laacdo hirarka laacaad iska laacdo adoo iloobay wixii shalay ku soo maray iyo wixii dhacay khalad baad gelaysaa marka waxaa lagu tababaraa halkan qofku inuu horumarka noloshana higsado isla markaana uu og yahay wixii soo dhacay shalay uu labada isku xidho markaasuu noqon karaa sarkaal markaasuu noqon karaa askari markaasuu noqon karaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa anfaca oo wax walba u qabta ilaa uu dhiig casku saxeexo horumarka dalkiisa shaqo qaran intaa aan soo sheegay waa laydin dulxaadiyaa dulxaadis baa ku barataa waayo waxaa laydiin tirinayaa shaqo qaran marka hore inaad dad aqoonna tihiin maskaxdoodu ballaaran tahay u baahan inaad fahamtaan ama aada guudmar ku samaysaan habdhaqanka iyo sida askartu iyo askarnimada loogu shaqeeyo oo aad ku tala gashaan marka laydiin baahdo dalkiina inaad la mid noqoto sarkaalkii aad kugalaaska ahaydeen ee isagu qaatay inuu noqdo militariga inaad la mid noqoto waxa kale oy ka faa'iido tahay
shaqo qaran oo adduunka oo dhan ma sameeya waynu ognahay oo dalkeenu baryaha dambe duruufaha jira dhaqaalaha awgeed qof waliba deegaankiisa ku nool ma jirto shaqooyin iyo warshado waaweyn oo dadka isku dhex gala ma jiro bulshada dhex gasha oo inta badan soo gaadha in yar mooyaan markaa markuu qofkii ardayga ahaa wiil iyo gabarba uu magaaladii uu ku dhashay ka galay elementariga ka dhameeyey iskuulka dhexe uu ku dhameeyey secondariga haddana uu jaamacaddii ku dhameeyey uu qof weyn yahay oo laga yaabo inuu reeriya carruur yeesho laga yaabo inaan deegaankiisii dhaafin waa dhibaato inteeda leeg markaa shaqo qaran muddada yar la isugu keenay waxa kow ka ah inaad isdhex gashaan inaad isbarataan inaad fikirkiina iyo sidaa wax u wadi lahayd isla fahamtaan waayo maxaa la isu kiin barayaa maxaa la isu kiin darayaa haddii aan la yidhaahdo muddo dhow oo berrita ah waxaa noqonaysaan madaxdii dalkan waxaa noqonaysaan madaxweynihii iyo wasiiradii iyo dhakhaatiirtii iyo safiiradii iyo looyaradii iyo tujaartii iyo qaarkiin sanaadiri noqon laga yaaba iyo culimada waxaa noqonaysaan dadkii berrinta dalkan u talinayay markaa waxaa lagu dadaalayaa idinkoo is yaqaana oo hebel iyo hebel isu garanaya oo doodi kara oo dal hogaamin kara oo iswada yaqaana oo deegaan walba garanaya inaad berrinta noqotaan madaxdii dalka oo hubaana wixii nool inaad noqonaysaan berrinta da'yartiinani kuwa dalka hogaaminaya shalay unbay ahayd annaguba markii aynu odhan jireen madaxdii dalkan soo hogaaminaysay oo ugu dambeeyey maxamed xaajiraan xigaal oo aan garanayo dhowda lixdankiisa oo prime minister uu noogu yimid iskuulka markuu dhago yidhi da'yartii berrinta dalkan xukumaysa waa noqonaysay dhammaantay waxaa ninkii gaaraba waxaa ka mid a dhammaan madaxweyneyaasha halka soo maray shalay bay dhalinyaro wada ahaay iyo intaa garanaysaan o dhan waxaa laydinka rabaa shaqo qaran lagadi sarkaan da'yarta oo dhan inaad isu diyaarisaan maskaxdiina ka ballaarisaan dhalinimada iyo duruufaha gaarka imka haysta ee laga yaabo dhaqaale iyo shaqo oo dalka baad ka jirto ogahay haddana qaar ka adag baa soo maray inaad isu diyaarisaan inaad madaxdii qaranka tihiin weliba shaqo qaran waxaa ku dadaaraya inay noqoto koorska yara gasheen mid dalka mustaqbalka anfaca ugu yaraan dad soo maray wax soo bartay marisa soo arkay og waxa dalka ka soo dhacay og waxa la higsanayo goobjoog u ahaa oo dhegaystay madaxda maanta wixii ay ku dardaarantay iyo waxay hayaan intaa waxaa dhaafaya ciidanka booliiska horta booliiska waa hambalyanaya shaqooyin wanaagsan oo aad iyo aad u hawl badan ay dalka ka hayaan soomaalidu mahmaha bay sheegtay marka reerku guuro ee la dego ama geelu jira yahay geela xerada loo oodayo laba nin baa ooda garaaca mid wuu garaacaa midna ooda wuu soo guraa reerku ku ooda mahmaha baa halkaa ka soo baxdo waxaa la yidhi garaaciya gure guraa hawl badan ka ooda jiidaa hawl badan oo culays ku dhacaya wadaxda xaganaysa garaacaasa isbida laakiin ninka reerka oodamaanka ooda garaacay ayuunbaa yeeshay horta waxaan idiin sheegaya boliisku waa jiidihii waa gurigii hawsha ku dhacda ciidamada kale kuma dhacdo 24 saacadood waa ciidan dagaal ku jira mar walba aroor galab habeen yacni hawsha waa ciidanka qura ee adoonaysa war dagaalka meel mar qura joogsanay ciidanka waxaynu ku amriyeenaynaa hawsha culus ee ay u hayaan dalka khaasatan magaalooyinka waaweyn gudahooda oo ay ka haystaan dhibaato badan oo ah dadka u baahan wax walba waa cidhiidhi biyaha la isku leynayaa shaqada yar baa la isku leynayaa suuqa yara kaariyoonaha la isku leynayaa carruurtiibaa aqalada ku yaryihiin oo dhalinyarada meel ay ku ciyaarto male garamadooda ka wada dhisanay dariiqii waa wadatiin iyo dhagax carruurteennii inankii yaraa meel alli iyo meel uu ku jibcsado male dabeetana ama dhagaxbuu tuuraya ama u islaynayaana buriisku bay saliinaya ciidanka buriiska waxaynu ku hambalyeynaa hawsha culus ee qaranku hayeen waana la gelaynaa hawsha ah waxaanu sal doonaynaa in la helo fikrad ay ku kala nastaan buriiska iyo dadku oo dadku ciidanka buriiska uunu dariiqaas ku haysan maayaana in la ballaariyo dalka meel ay ku ciyaaraan ganacsiga meel loo ballaariyo wadooyinka dhagaxa lagu soo ururiyo dadweynuhu inay ka feejignaadaan waxyaalo badan buu dadweynuhu ka caawin karaa buriiska si loo kala nasto aad iyo aad baan u hambalyeynaya waayadan intan xanuunkan karo soo kordhay xataa jaadkii la joojiyey wacdanihii ay ka muujiyeen guusha ka sooyeen oo waa ku hambalyeynayna waxaan u dhaafayaa ciidanka qaranka horta dee maanta waxay nala joogeen boqorkii dagaalka ayay soo dhigeen oo maanta way salaameen taangigu waa boqorka dagaalka la yidhahda marka ciidamada laga hadlaayo markuu taangista ninku yahay cid uga ka maydhaa
duuliyaha diyaaraddu ka baydha ka markabkooda waa ka baydha ka infantariga waa ka baydha boqorka dagaalka la baxeen waana yihiin waayo dagaalku dhan wuxuu kusoo raray cadow inaad jebiso goobta laysku haya inaad ka qabsato taangi uma qaban kara dhulka oo ciidanka infantariga la socdo infantariga la socon maayo haddaanu taangu jibaaxayn cadowga iyo caqabada u dhigay miina ha ahaato bohon ha ahaato dhisma ha ahaato isagaa u jeexa ciidanka waddada sidaa darteed waxaan ku amrayanaa maanta inaanu la kulannay qayb ka mid a boqorkii dagaalka iyo teknikadii oo socda dhammaantoodna waa amrayanaa ciidanka waxay u yihiin iyo qarankana horaa loo sheegay in ay yihiin ciidanka qaranku waxa dalka deyrka iyo mustameedka oo hayr daawaraysa anagoo ku amraynaya maanta halkan waxaan u yimid maadaama xanuunkan jira corona awgee aynaan u samayn karin dowlatus ciidan oo ciidamada midowga halkiisa ku dhagaaday waxaanu ogaanay inaanu u nimaadno oonu door bidnay inay joogaan ardaydii ku habboonayd in ay matalaan ciidamada ee soo koraysay hadday yihiin laylisalkaale shaqaraba iyo guto ka mid a gutooyinka ciidanka oo qolada taangistaha iyo tiknikada ugu horeeyaan oo ahaa kugu diyaar garoobayay inay maraan sanadkan suuqyada magaalada oo aanay suurtoobeyn xanuunka awgii waxaan ku amriyayna boliisku dadaalka badan iyo tiknikada cusub ay soo kororsadeen ay usoo diyaar garoobeen nabadgelyadii xajintoodii ciidankooda quruxda badan iyagana waa ku amriyayna diyaar garooga dhammaanteen waan idin hambaryaynayaa waan idin ducaynaynaa waxay noo dardaarana dal jacayl geesinimo nafurid leh iyo xilgudasho haddii ciidamada la yahay iyo qof kastoo muwaadinaba waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu